بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sidoo kale tacaawuna waxaan ku xijin doonaa taxanaheeni Excel-ka waxaan fiirin doonaa hadii Ilaahay idmo insha Allah sidan qaacidooyinkan hadda aan idin tusi doono u isticmaali lahayn ama functionada noocaan oo kale taa sidan u isticmaali lahayn oo qaacida ahaan aan ugu soo saaran lahayn computerkeena. aqoontu waa in doora waqtiguna waxa weeye inaad gelisid ayay kaaga baahan tahay ilaa iyo waxaan fiirin doonaa hadii Ilaahay idmo insha Allah lixdan qaacido ayaan hadii Ilaahay idmo insha Allah caawina jeexi doono anigoo mid walba tan ku ogaan doono muhiimadiisa gaarka ah. functionada hadii Ilaahay idmo insha Allah aan tijaabin doono waxaa kamid ah today, now, day, month, year, date oo u dhiganta maanta, hadda, maalinka, bisha, sanadka iyo date-ka wada socdo ayaan rabnaa insha Allah inaan ku soo saarno formulooyin inagoo adeegsanayna. hadda waad aragtaa meesha formulaha waxba nooguma qorno waxba ma haysano zero ayaan garaacaynaa. waxaan rabnaa marka inaan soo saarno date-keeni ayaan rabnaa hadii Ilaahay insha Allah si automatic inaan soo saarno. marka waxaan isticmaalaynaa qaacidada today waxaan leenahay equal today ayaan leenahay waxaan furayaa bil sidoo kale bish ayaan iska xirayaa kadibna enter. already marka enter idhaahdo waxay toos isugu xiraysaa system-kaaga date-ka markaas uu yahay ama taariikhda uu yahay isku xiraya. tusaale inta fiiri 7 bisha 12aad 2021 ayaad aragtaa. sidoo kale waxaan rabaa isla saacada hadda la taagan yahay iyo taariikhda oo wada socdo inaan arko. waxaan leeyahay equal kadib waxaan leeyahay now waxaan xiraa bilan furaya kadibna waan iska xirayaa kadibna waxaan leeyahay enter. already maxaa aragtaa 1 saac 25 daqiiqo ayaad aragtaa. inta eeg waxa weeye waa 1 saac 25 daqiiqo. waxaas marka waxa waa qaacidada ku ogaan kartaa. marka waxa ku soo haray okay waxaan separate gareyn doonaa hadii Ilaahay insha Allah qaacidada day-ga ayaan isticmaali doonaa anagoo ku kala saari doonaa bisha, maalinka iyo sanadkiiba. waxaan leeyahay equal day waxaan leeyahay open bracket kadib waxaan dooranayaa day kadib waxaan leeyahay close bracket enter. arkaysan bisha maalinka 12aad waaye tan hadda day ay ku qoran tahay 12ka bisha ayaan u kala saaray. waxaan leeyahay equal sidoo kale si aan month u saaro month ayaan qorayaa kadib waxaan leeyahay open bracket kadib waxaan dooranayaa date-kaas kadib waxaan leeyahay close bracket enter. ayadana waa aragtaa bisha 7aad inay meesha ku qoran tahay. sidoo kale waxaan rabaa inaan yearka u kala saarno waxaan leenahay equal kadib waxaan leenahay year kadib waxaan leenahay close bracket open bracket waxaan sidoo kale dooranayaa date-ka kadib waxaan leeyahay close bracket kadib waxaan leeyahay enter. waad aragtaa macnaha inaan kala saaray saddexdoodiba 12ka bisha 7aad 2021 waxaan kala saaray si caadi ah ayaan u kala saaray. soo marka waxaan rabaa inaan sidoo kale hal mar ayagoo jamac ah aan isku wada keeno. waxaan leeyahay equal kadib waxaan qorayaa date kadib waxaan leeyahay open bracket waxaan dooranayaa middan koowaad waxaan control-kan qabsanayaa enter waxaan leeyahay waan taabanayaa comma sidoo kale tan kale aan daabanayaa comma sidoo kale tan kale aan taabanayaa kadib waxaan leeyahay close bracket si macnaha ayagoo jamaca date-ka dhan aan wada soo sameeyo. waa arkaysaa marka bisha 7aad 12keedi 2021 isma dhaafno. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.